Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka qofka bini'aadamka ah ay la soo gudboonaato xaalad caafimaad darro, waxyaabaha uu naftiisa kula tacaalo waxaa ka mid ah inuu u tago dhakhaatiirta, waxaanay dhakhaatiirtu isku dayaan inay caawiyaan bukaanka soo booqday. Laakiin dhinaca kale waxaa iyaguna taariikhda soo maray dhakhaatiir ku kacay arrimo arrintaasi aad uga duwan. Waxaana ka mid ah 60 dhakhtar oo loo aqoonsaday inay ahaayeen dhakhaatiirtii ugu xumayd ee soo marta taariikhda aadamaha. Dr. Saikil Jacob Zuma ayaa loo aqoonsaday mid ka mid ah dhakhaatiirtii ugu xumaa ee soo marta taariikhda aadamaha. Waxaanu dhakhtarkani ku takhasusay xanuunada dumarka iyo dhalmada, waxaanu dumar badan riximkooda ku beeray carruur, iyagoo aan ka warqabin, isla markaana ogaaday in waqti dambe, iyadoo la soo wariyay inuu in ka badan 100 dumar ah ku beeray carruur, iyadoo markii arrintiisu ay soo shaac baxdayna xabsiga loo taxaabay. Hase ahaatee waxaa lagu xukumay 5 sano oo keliya. Dr. Michael Sawango ayaa isna loo aqoonsaday inuu ka mid ahaa dhakhaatiirtii ku kacay falalka aadka u xunxun. Ninkan oo ahaa dhakhtar Amerikaan ah waxa uu si badheedh u dilay in ka badan 60 qof oo ka mid ahaa bukaanadii soo booqday, isagoo bukaanada ku mudi jiray irbad waxoogaa xanuunka ka khafiifisa, laakiin waqti yar kadib nolosha dhaafinaysa. Waxaana la soo taagay maxkamad, iyadoo lagu xukumay xabsi daa'im. Dr. Hall Shipman ayaa isaguna ahaa dhakhtar u dhashay waddanka Ingiriiska, waxaana sanadkii 2000 lagu helay inuu si badheedh u dilay dad ka badan 100 qof, isagoo dadkaasi ku mudi jiray ama ku duri jiray irbado halis ah, waxaana lagu xukumay aakhirkii xabsi daa'im. Dr. Jack ayaa isna waxaa loogu yeedhi jiray dhakhtarkii geerida, waxaanu samayn jiray qof kasta oo soo booqda oo uu hayo mid ka mid ah xanuunada aan laga bogsan, iyo qof kasta oo sakaraad ah oo isaga loo keeno ayuu ku mudi jiray irbad waqti kooban nafta ku dhaafinaysa qofka. Inkastoo haddaba ninkan markii arrintiisa la ogaaday lasoo taagay maxkamad, haddana waxa uu ku dooday in dadka xanuunka aadka u darani uu hayo uu nafta uga raaxayn jiray, waxaana lagu xukumay 8 sano oo keliya. Dhakhtarka shanaad ayaa ahaa Dr. Walter Freeman, waxaanu ahaa dhakhtar Amerikaan ah, waxaanu ninkani samayn jiray qalliino madaxa ah. Hase ahaatee waxa uu si qaldan u maamulay hawshii dhakhtarnimo, waxaanay taasi sababtay dhimashada dad badan oo ka mid ahaa dadkii isaga soo booqday. Waxaana ninkan kiiskiisa lagu sheegay inaanu qaladkaa u samaynin si ula kac ah, laakiin cilladdu ay ka timid qalabka uu adeegsanayay iyo aqoon darro ka haysatay xagga dhakhtarnimada. Waxaana kiiskiisii laga dhigay in laga fadhiisiiyo hawsha dhakhtarnimo oo keliya. Dictoorka lixaad ayaa isaguna ahaa Dr. Holmes. Ninkan ayaa waxa uu samayn jiray falal bahalnimo ah, isagoo kiraystay dhismo weyn, kadibna waxa uu samayn jiray dadka soo booqda ayuu si badheedh u dili jiray, waxaanu googoyn jiray lafahooda, kadibna waxa uu ka samayn jiray filim dokumentari ah. Waxaanu filimka dokumentariga ah ee uu sameeyey u geyn jiray shirkadaha caymiska, isagoo shirkadahana ugu sheegi jiray inay dadkani galeen shilal baabuur iyo waxa la mid ah. Sidaana waxa uu lacag kaga qaadan jiray shirkadaha caymiska, waxaana la soo taagay maxkamad, iyadoo lagu xukumay xabsi daa'im.